education platform. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومركلة مع عبد القادر يوسف عثمان دروستي قبل نومريسي مادة تربية الدكسي دحي فصلك التضباط وحبضنا عن سودني عن لينا إنا آد مراجعيسين امتحامد وديار قرودين سفي عن مراجعيستين waxaan hadda ka hadlaynaa salaadihii aan ku jirnay salaadii waa baranay qurax madoobaadka iyo waxyaabihii ku saabsanaa oo darsigii hore aan ku qaadanay. maanta waxaan qaadanaynaa adarsu alkhaamis taxiyatu lmasjid, salaanta masaajidka. oo markaa maxaa waaye waa salaad ka mid a salaadaha sunnooyinka ah. qofka inuu markuu masaajid qofka soo galo inuu fariisto lama rabo. laba ragco oo loo bixiyey taxiyatu lmasaajid ayuu tukanayaa. marka bal salaadaas iyo sida loo tukado iyo xukunkeeda ayaan halkan ku baranaynaa insha allahu tacaala. أهمية المساجد في الإسلام، يعني أهمية ومساجد كأولية هي إسلام يعني ماشان لغو رمية. أما مهمة ومساجد كهرت اللي هي مسلمين تا مساجد كوحوية هي مال مهم أيوية. قال لك مرمان أقفك مسلم كوسن كمارمين. مركب حياوها مساجد وتران وبد مسلمين تي أهمية ذو يعني حيرنا لو الشيء. تعد وحلو تريا المساجد مساجد في الإسلام. مركز الإسلام كلا جهل لايو إن يتهاي بيوتا جريء لله تعالى. الله إسكاليه هي وإسكالو داي. لذلك السيدة درادين فهي جريها سي أشرف الأماكن وعملها كو شرفت بدن على وجه الأرض دولك الدشيس. مركز دولك كيس ماشي وناكسن وماشي مساجد كأ. ولها waxay leedahay أهمية بالغة مهمة حيل دير oo عظيمة weyn عند المسلمين مسلمين dhexdeeda. وقد اكتسبت waxay kasbatay masaajidu هذا الشرف شرفtaas maxay ku yeelatay لأن maxaa yeelay ذكر الله تعالى إلهي ذكرgiisa ayaa yataradad ku soo noqnoqda fiiha dhexdeeda صباحا ومساء subax iyo galab. salaada lagu tukanayaa, quraana lagu akhrisanayaa, waa lagu tasbiixsanayaa, meel hadda ka sharaf badan ma jirta marka. wadaa'iman mar kastana maa yamla'uhaa waxaa buuxiya rijaalun dad oo rag oo laa yakfuluuna aan hilmaamaynin can daacati illaahi tacaala ilaahay daacadiisa. fii shuqlihim mashquulka adduunyada uusan hilmaamsiinaynin ilaahay daacadiisa. wa faraaqihim hadday faraaqan yihiin aan hilmaamaynin ilaahay daacadiisa. وحلهم هدي دقيهين عن هلمامين إلهي ضاع عديسة. وترحالهم هدي سفريهين عن هلمامين إلهي ضاع عديسة. مروا بكجرة مال والب مروا بإلهي لو حصاير مال كفي عن مجرته. والمساجد مساجد تعالج وحيد دويسا قلوب الناس ذاتك قلوب توضع. إجراء دي قبل السبتال سوى ما أدين قلبك بركات كجر انتهي وقلبك قللايو وقلبك شيطان وسواسناي انت لو داويه مساجدك. فهي مساجد تغير وحي بدشا حالها حالك قلبك بدشا من الشقاء يعني نصيب درنمده iyo gaalnimada ila saadati guusha iyo muslimnimada. shaqaa waxa la qofka nasiibka xun oo helo naarka ah, saadana waxa la qofka nasiibka wanaagsan oo liibaanta. marka qalbigii waxay ka soo qaaday helo naarnimo helo janno isoo wareejinaysa. wa min al-hammi walwalkay ka baabi'inay إلى الانشراح إلى قلبك إنه شرح واسع ونقضه. قلبك هذا المساجد وبضته ويسكت دقايا. وهذا ركتين ضد بدن وهذا اللي قد داويه اسكبوق استرس ورير جهورير يودك كان مساجد القلب. هذا تصبح مساجد شو جزء كأكو آخر سطو كتصبح سطو شغل هذا آدم إسكول كاغا ظهر كي مساجد كجشو كتصبح سطو قلبك أقوى الدقايا. وتجعلها وحكدك قلوب مساجد قلبك رقيقة قلب جلعسن نظيفة أو نظيف كأه من الآثام الدنبية التي الدنبية سيرتكبها وسمي الإنسان دنبية كان نظيفين هذا الدنبية سوق شيء. أما إن هذا إنجلنا سبب كون غنيسا كما أن الملائكة سيدو كلام ملائكة أيا ترف عليها أيا مساجد كل مساجد كركيس كل حلحظة
biajnixatihaa baalasheeda iyo garbaheeda. masaajidda korkeeda ayay malaa'igtuna garbahooda saas ku leeyihiin. waraxmatu naxariista ilaahay ayaa tanzilu kusoo degta calayhaa masaajidda. wa fiihaa masaajidda dhexdeeda ayaa taxsulu waxaa lagu helaa altarbiya alislaamiya, barbaarinta islaamka ayaa waxaa looga helaa lilmuslimiina muslimiinta. fatulqaa oo see marka loogu helaa, fatulqaa waxaa lagu akhriyaa oo lagu dhex sameeyaa fiihaa masaajidda dhexdooda almuxaadaraatu, muxaadarooyin baa laga jeediyaa, waduruusu, duruus diiniyaa lagu akhriyaa, tafsiir iyo xadiid. wayajtamicu fiihaa waxaa ku dhex kulma almuslimuuna muslimiinta, wayasdafuuna way dhex saftaan safan waaxidan, hal saf bay safanayaan, khalfa imaamin waaxidin, imaam kale iyaa wada tujinaya, mutajaawiziina ayagoo ka soo gudbay kulla dhammaan anwaaci alfuruuqi, wax kastoo ay ku kala duwanaayeen baynahum dhexdooda. kii dheeraa, kii gaabnaay, kii madoobaay, kii caddaay, kii madaxda ahay, kii miskiinka ahay, kii jiranaay, kii fayoobaay, kii maalqabeenkaa, kii waa kaas. kulli hal imaam, hal saf, kulluhum dhammaantood waxay hortaagan yihiin amaama allaahi ilaahay hortiisa, caza allaha guulaystay ee wajalla weyn. wa bayna yadayhi ilaahay hortiisana mutasaawuuna waa siman yihiin. marka masaajidka aan galno, kii madaxda ahaa iyo kii aan madaxda ahayn ilaaha loo wada siman yahay. laa fadla mid fadli leh ma jiro liaxadihim dadkaas masaajidka ku tukanaya qof kastoo ka mid a cala alaakhari kan kale qof uu ka fadli badan ma jiro, ilaa waxaa lagu kala fadli badnaana bimaa yaxmiluhu wuxuu wato oo fii qalbihi qalbigiisa min taqwa allahi allah cabsidiisa. caza allaha guulaystay wajalla ee weyn. masaajidkiaan soo wada galnay, yaa noogu fadli badan kee noogu qalbigiisa alla ka cabsi badan yahay. ina akramakum cinda allaahi adqaakum. mimaa arrintaas maxay samaynaya marka, yurabbiihim waxay ku barbaarinaysaa dadka muslimiinta ah cala tacaawuni inay iskaalmaystaan oo watakaatufi isgarab istaagaan oo iskaalmeeyaan, wa cadamu lictidaa'i inaanay ku xadgudbinin calaa bacdihim qaarkood qaarka kale, ilan maalin walba meesha ku wada tukanayaane. fatata'akadu waxaa marka hubaal noqonayso bidaalika markay sidaa ay sameeyaan macaani lislaam, islaamka macnayaashiisii asaamiyati sarreeyey fii nufuusihim naftooda. dhibaatooyinka haddan haysta maxaa ka mid a oo isu dagaalno, isu necabnahay, masaajidkii aan ka kala tagnay. haddii masaajidda lagu wada tukado laysku salaamo waa kaas. watatarasakh waxaa sugnaanayso fiihaa masaajidda dhexdooda cadamatu haada diin, diinteenna weyninkiisa iyo wa fadlihi fadliga uu leeyahay. marka masaajidka waa maxay marka? tarbiyadaa lagu bartaa, imaam keliyaa lagu daba tukadaa, ilaahay baa dadka loo wada hor istaagaa, kibirkaa baaba'aya waa la simanaanaya, waa kaas. ina almasaajida fi lislaam, masaajiddu islaamka waxay ku leedahay makaanatun rafiica, darajo sare oo laysat aanay u sugnaanin darajadaasi ligayrihaa meelaha kale, ligayrihaa geyrkeeda oo min alamaakini meelo ah. meelaha masaajidda ajar aanay lahayn ayay masaajidda leeyihiin. fa hiya masaajiddu buyuutullaahi waa guryo ilaahay loo nisbeeyey, allihii tacaalaa sarreeyey, fii ardihi dhulkiisana ku yaallo, nasabahaa ilaahay baa u tiiriyey linafsihi naftiisa, tacdiiman isagoo weyneynaayo lisha'nihaa sha'nigood. buyuutullaahi aa layidhi ilaaha loo tiiriyey. balfiiri faqaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa ana almasaajida, masaajidda waxay u sugnaadeen lilaah ilaahay, falaa tadcuu ha ku dhex tuugina maca allaahi wax ilaahay aad la jirsiisaan axadan ruux. mar haddaad masaajid geshid allah iska leh, baahidaada yaa u sheeganaya marka allah keliya. marka ilaahay wuxuu markaa sameeyey marka meesha aayaddaas maxay leedahay wa ana almasaajida lilaah. sharaf ka weyn maa jira marka masaajidda allah leh. ka warrama qofkii ku dhex cayaara, ka warrama qofkii ku dhex buuqa, ka warrama qofkii filim ku dhex fiirsada mobaylka dhexdiisa, ka warrama qofkii qof ku dhex caaya, ka warran qofkii salaadoo lagu jiro orordo sida ciyaalka qaar ay ku sameeyaan masaajidda. inkaar ayaa ku dhacayso, ciqaab ayaa ku dhacayso, cuquubo ayaa ku dhacayso, ilaahay ayaa u caroonayo, halis. iska ilaaliya marka masaajid. wa ana almasaajida lilaah, ilaahay wax ka weyn ma jira mooha. gurigiisana marka waa in loo weyneeyo, loo sharfo, loo ilaaliyo, loo nadiifiyo, waa kaas. isaga keliyana lagu caabudo. markaad masaajidka tegtid ilaahay keliyaad caabudaysaa,
ilaahay keliyaa baryaysa, ilaahay keliyaa u oynaysa, ilaahay keliyaa u sujuudaysa, ilaahay keliyaa u rukuucaysa. waa kaas. wa hiya masaajidu khayru biqaaci alardi, dhulka meelaha oo dhulka biqaac waa boosaska dhulka meelaha ugu khayrka badan waaye. wa axabuhaa ila allahi, ilaahayna loogu jecel yahay tacaala allaha sare, liqowlihi maadaama uu yihi sala allahu calayhi wasalam, nabigeena wuxuu yihi axabu lbilaadi, dhulka loogu jecel yahay ila llahi ilaahay masaajiduhaa masaajida waay. rawaahu muslim, xadiiskaa muslim baa weriye. dhul waxaa loogu jecel yahay masaajida oo ilahay ugu jecel yahay. wa mima yadulu calaa, waxyaabaha ku tusinaya calaa qiimati lmasjid, masaajidka qiimaha uu leeyahay waxaa ka mid a ana awala camalin, shaqadii ugu horeeyey ama ugu horeysay ee qaama bihi uu istaagay shaqadaas annabiyu nabiga cinda wusuulihi markuu soo gaaray sala allahu calayhi wasalam ila almadiinati, magaalada madiina, maxay ahayd? binaau lmasjid, dhismaha masaajidka. nabiga markuu magaalada madiina uu usoo qaxay, shaqadii ugu horeysay uu qabtay waa masaajid u dhisay. weliba 2 mar bay ahaydoo markuu nabigu Qubo u yimidna masaajid uu ka dhisay. haddana 4 bari kadib uu madiina soo galay, iyadana shaqadii ugu horeysay masaajidka nabiga la dhisay. marka meesha maxaa ka garanaysaan? muslimiinta dhulka ilaahay waa in masaajid kow u yahay. haddaan masaajid jirin islaam suu ku jira waa adkaanaysa. marka shaqadii ugu horeysay uu nabigeena qabtay masaajid dhisiday ahayd. mashruuciyatu salaati taxiyati almasjid, waa kana marka sida loogu sharciyeeyey salaad oo masaajidka lagu salaamayo. warada waxaa soo arooray can rasuulillaahi, rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam, xadiis baa ka soo arooray yaamuru uu ku amrayo fiihi xadiiskaas man qofka dakhala gala almasjida masaajidka an yusalliya inuu tukado ragcatayni 2 ragcadood qabla aljuluusi intaanu fariisan ka hor fiihi masaajidka. masaajidkiyaa soo gashay intaadan fariisan 2 ragcadood aa lagaa raba oo sunno ah. xayثu qaala, halkaasoo nabiga uu yiri, waa kana marka nabiga xadiiskiisii, idaa dakhala hadduu soo galo axadukum qofka idinka mida almasjida masaajidka falaa yajlis yuu fariisanin xataa yusalliya ilaa uu tukado ragcatayni 2 ragcadood. waa kaas amar nabiga bixiye waay. wa haataani ragcataani, marka xadiiska halkaasuu ku egyahay. 2daas ragcadood marka humaa waxa waaye salaatu taxiyati almasjid, waa salaada hadda aan u bixinay salaantii masaajidka. markaa nabiga uu amray, laakiin amar oo waajiba ma aha. marka salaadaasaad marka aad tukanaysaa. xukmu taxiyati almasjid, xukunkeeda waa maxay? waajib miya? maya. hiya iyada sunnatu, waa sunno mu'akadatun, laakiin waa la adkeeyey. fayustaxabu waxaa sunno u ah liman dakhala almasjid, qofkii masaajidka galaa laga rabaa an yusalliya inuu tukado ragcatayni 2 ragcadood taxiyatan, salaan iyagoo u noqonayo lilmasjid, guriga ilaahay. wayukrahu waxaa karaahiye ah lahu qofka aljuluusu inuu iska fariisto qabla salaatihima intuuna tukanin. oo waktiga nabiga waxaaba dhacdayba, nabiga oo arkaya nin intuu masaajid soo galo iska fariista. nabigu wuxuu yidhi ma tukatay taxiyatulmasjidka? ma istaag ee tuko. marka hawsheeda marka waa muhiim, ceeb way marka inaad iska fariisatid. wastadalla waxay u deliishadeen akharu alculamaai, culamada badankoodu, bi hada alxadiidi, xadiiskaanay u deliishadeen lilqowli inay yidhaahdaan bianna salaata taxiyati almasjid, salaada oo taxiyati almasjidka ah, ta'khudu waxay qaadanaysaa xukma sunnati, xukunkii sunnada ayay qaadanaysaa. bal iskaba dhaafe inay sunno tahay macnaha. wa naqala bacdu alculamaa'i, culimmada qaarkood waxay soo rareen alijmaaca in lagu kulmay calaa daalika arrinkaas. oo faqad qaala wuxuu yidhi alimaamu nawowi, imaamu nawowi ayaa wuxuu yidhi raximahu llah, ina alculamaaa culimmadu qad ajmacuu waxay isku raaceen calaa istixbaabi adaa'i salaati taxiyati almasjid, inay sunno tahay in la gurto salaada taxiyatulmasjidka. wa karaahiyati, iyo inay karaahiye tahay an yajlisa alinsaanu inuu qofku iska fariisto fiihi masaajidka duuna an yusalliyaha, isagoon tukanin bilaa cudurin, cudurdaar isagoon tukanin. marka xadiisku waa xadiiskii aan soo sheegay, hadda nabigu uu sheegay sal allahu alay wasalam, ula haddii uu qofku masaajidka galo yuusan fariisan isagoon tukanin. marka laakiin culammadu waxay isku raaceen inay tahay muxuu ahaa inay sunno tahay, ayaa culamo badan ay isku raaceen, culamo badan ay sheegeen.
oo qofkii markaa ka taga laakiin karaahiye ay tahay marka macnaha waa sunna oo markaa waxa weye aad iyo aad u adag lidaas sidaa daraaddeed ilaa hadda sunna mu'akadaa la yidhi soo ma arkaysid sunna mu'akada waa sunna laakiin aad ay u adag tahay lidaas sidaa daraaddeed yustaxabu lilmuslim qofka muslimka waxaa sunno u ah cinda dukhuulihi almasjida markuu masaajidka galo an yabda'a inuu hawshiisa ka bilaabo bitaxiyati almasjid masaajidka inuu salaamo ayib awqaatu taxiyati almasjid waqtiyada la tukanayo taxiyat almasjidka yajuusu waxaa bannaan aadaa'u salaati taxiyati almasjid in lagu guto salaada taxiyatulmasjidka fii jamiici alawqaat waqti kasta xataa fii awqaati nahyi xataa waxaa jira waqtiya salaadaha la reebay meeshan wuxuu kugu sheegayaa haddaad masaajidka subax soo gasho iyo haddaad duhur soo gasho iyo haddaad barqo soo gasho iyo haddaad galab soo gasho iyo haddaad habeen soo gasho iyo haddaad saq dhex soo gasho waktigaad soo gashaba waa la tukan karaa iyada waqti u gaara ma leh xataa marka waqtiyada salaadaha la reebay bacd alcasr oo kale iyo salaad subax kadib oo kale iyo waqtiyada salaadaha xataa nahyi ku soo arooray ayada waa la tukan karaa buu leeyahay sababta waa maxay liannahaa maxaa yeelay taxiyatulmasjidka tucaddu waxaa iyada lagu tiriyaa inay tahay salaatun salaad lahaa sababun sabab iska leh sababteedana waa maxay salaanta masaajidka wa kullu salaatin salaad kasta oo lahaa sababun sabab loo tukanayo leh yajuusu way bannaan tahay adaa'uhaa in la guto fii waqti nahyi waqtiga salaadaha la reebay inkastoo masaladaas masale khilaafa tahay oo culimmada qaar ayna ogoleen haddana sidaan uu hadda leeyahay oo waxaa weeye salaadaha sababta leh waqtiga salaadaha la reebay waa la tukan karaa waana qowl aad iyo aad u fiican wa awqaatu nahyi waqtiyada marka salaadaha sunnooyinka oo aan sababta lahayn la reebay wahiya waxay yihiin bacda alcasri salaada casar kadib salaad sunno ah oon sabab lahayn ma tukan kartid wa waqtu zawaali waqtiga qoraxda ay cirka ku aadan tahay madaxaaga kala barka iyadana salaad lama tukan karo aan sabab lahayn wa bacda subxi salaada subax markii la tukada kadibna lama tukan karo salaad aan sabab lahayn wa waqta duluuci waqtiga qoraxda soo baxayso iyadana salaad in la tukado ma banaana walguruubi waqtiga dhacaysana ma banaana ay qoraxdu geeska sii gelinayso maxaa u daliil ah limaa ruwiya can الnabiyi nabigaa laga wariyey salى اllahu alayhi wasalam anahu asagu nabigu sallaa inuu tukaday ragcatayni bacda alcasri laba ragcadoodoo nabiga bacda alcasri tukaday faqiila lahu markaasa waxaa lagu yidhi amaa nahaytanaa can haada miyaadan naga reebin arrinkaas faqaala markaas nabigu wuxuu yidhi inaan salaad bacda casr tukanno humaa ragcataani waa laba ragcadoodoo kuntu usaliihimaa aan tukan jiray bacda duhri salaada duhur kadib fashaqalanii waxaa iga mashquuliyey canhumaa labadaas alwafdu wafdi ii imaaday bacda duhur ayaan ku mashquulay marka meesha maxaa laga fahmayaa marka salaada hadday tahay salaad sabab leh in waktiga salaadaha layska reebay la tukan karo ilan hadda bacda alcasr salaad sunno aan lama tukan karaa la dhahay haddana nabiga waxaa la arkay isagoo tukanayo maxaa u tukanaysaa la yidhi wuxuu yidhi duhurkii kadib tii aan tukan jiray ayaa niman iga mashquuliya ayadii hadda tukanaya marka salaaddii sabab lahayd marka booskaas waa la tukan kara marka taxiyatulmasjidku salaadaha sababta lay ka mid tahay marka waqtiyada oo aan salaadaha la ogolayn xataa waa la tukan karaa bay daliil u tahay wa can abi qataada waxaa laga wariyey ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam nabigeena calayhi salaatu wasalaam qaala inuu yidhi idaa dakhala axadukum haddii axadkiin uu galo almasjida masaajidka falyarkac ha tukado ragcatayni laba ragcadood qabla an yejlisa inta uuna fadhiisanin wayusannu fiihimaa labadaa ragcadood waxaa sunno ah an yaqra'a qofku inuu ku akhriyo suurata alkaafiruun suuradda la yidhaha qul ya ayuha alkaafiruun wa suurata alikhlaas iyo suuradda qul huwallaha labadaa inaad ku akhridana waa sunno ayib xataa inahaa laa tasqud xataa salaadahaas ma dhacayaanoo qofka salaatixilmasjidka hama dhacayso wain kaana alkhadiibu xataa haddii ninka khudbo khadiibkii uu yahay cala almimbari mimbarka yowma aljumcati maalinta jumcaha markaa salaadaas maxaa lagaa rabaa taxiyatulmasjidka xataa imaamkiio jimcihii khudbaynaya haddaad soo gasho labadan ragcoo lagaa rabaa
faman dakhala qofkii soo gala masaajidka walimaamu yakhdub imaamkii khudbadaynayo sallaa ragcatayni wuxuu tukanayaa 2 ragcadood khafiifatayni oo fudfudud oo dheerdheerayn uma yajlis markaasuu iska fadhiisanayaa marka xataa masaajidka haddaad jimcaha soo gasho khudbada lagu jiro waa lagaa rabaa waidaa dakhala shaksu haddii qof uu soo galo almasjida masaajidkii uu soo galay waqad xadarat isalaatu salaadiina waa xaadirtay way timid almaktuubatu waajibka ahayd waxaa la aqimiba duhurkii ama casarkii ama maqhribkii la aqimiba lam yusalli ma tukan kara markaas taxiyat almasjid taxiyat almasjid ma tukan karo ilaa markaan salaadii duhurkii la galay masaajidkaa soo gashay salaadii duhur oo la aqimaad soo gashay taxiyat almasjid aan tukana ma laga yeelay sabab waajib iyo sunno maxaa horeeya waajibka sababtu waa maxay xadiiskana u daliil ah lima rawaa abu hurayra xadiiska abu hurayra uu wariyey radia allahu canhu allah ka raali noqdee muxuu abu hurayra yidhi ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam abu hurayra wuxuu yidhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa qaala wuxuu yidhi idaa uqiimat isalaatu haddii salaadii waajibka ahayd la aqimo oo duhur ama subax ama casar ama maqrib ama cisho ah falaa salaata salaad kale ma jirto ila almaktuubatii waajibka ahayd maahane marka waa xadiiska meeshuu ku egyahay maxaa yeelay lianna adaa alfariida maxaa yeelay waajib in la guto ayaa yaxsulu biha ataxiya waxaa ku imaanayaba salaanti ilan salaadan waxayd masaajidka inaad salaanto waa soo gashay duhuraaba la aqibay duhurkaasaaba ku salaamaysaa masaajidka iyadoo waajib la tukanayana sunno ma lagaa rabo taana inaad ogaatid waa muhiim darsiga waxaan gelaynaa marka layliskiisi qaybta koowaad ujiibu can alas'ilati alaatiya waxaan ka jawaabayaa su-aalaha soo socda kow taxadath ka hadal can ahamiyati almasaajid muhiimadda masaajidka uu leeyahay fi lislaami islaamka ciwaan aan darsiga kusoo qaadanuu ahaa dib u akhri ka hadal marka kam su-aasha labaad kam imisa waaye cadadu tirada rakacaati ragcadaha taxiyati almasjidi salaada masaajidka lagu salaamayo 2 ragco 3 ishrax noo sharax qowluhu hadalka oo sala allahu calayhi wasalam uu yidhi idaa uqiimat isalaatu haddii salaada la aqimo falaa salaata salaad ma jirto ila almaktuuba waajib maahane sharaxeeda muxuu noqonaa marka laa yajuusu taxiyatu almasjid idaa uqiimat salaat almaktuuba maxaa yeelay lianna ataxiyata taxsul bisalaat almaktuuba salaantii masaajidka waxaa lagu helayaa salaada waajibka ah 4 maadaa tafcal maxaad samaynaysaa adiga idaa dakhalta haddaad soo gasho almasjida masaajidka waqad uqiimat iyadoo la aqimay almaktuuba salaaddii waajibka ahayd waxaad leedahay laa usallii taxiyata almasjid bal adkhul salaata almaktuuba faralkaan gelayaa haati la imow daliilan daliil calaa ficlika waxa aad samaysay xadiiskii aad soo qaamanaysaa nabiga haddii qofku uu soo galo masaajidka iyadoo la aqimay ha tukado salaada waajibka ah 5 maadaa tafcal maxaad samaynaysaa idaa dakhalta almasjid haddaad masaajidka soo gasho walimaamu yakhdub isagoo khudbada imaamka wado waa iska tukanaya taxiyatulmasjid aan tukanaya markaas waa la ogol yahay waa lagaa rabaa 6 haati daliilan daliilkan yadullu ku tusaayo calaa ahamiyati almasaajid masaajidda inay muhiim ay tahay daliil ku tusinayo xadiiskii aad soo qaadan kartaa dhulka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay masaajiduha 7 maa xukmu waa maxay xukunka salaati taxiyati almasjid xukunkeeda muxuu noqonaa marka sunna mu-akada waa taan soo niri ayib qeybta labaad imla buuxi alfaraaqaat meelaha bannaan attaaliya ee soo socda bimaa wax yunaasibuhaa ku habboon idaa dakhala axadukum almasjid waa kaas xadiiska adiga hadda marka meelahaas adaa kitaabka ka raadsanaya laydin sheegi maayo 2 xukmuhaa xukunkeeda waa maxay waa sunna mu-akada waad wadaysaa marka qofka 2 ragcadood tukanayaa waxaan la karahsadaa inuu fadhiisto qabla an yusaliiha wahiya mashruucatun waxaa loo sharciyey waa darsigii aad dib ugu laabanaysaa faqaraadkii aad akhrinaysaa meelaha bannaan ka soo buuxi 3 ina lilmasaajidi fi lislaam soo bubuuxi iyadana waa ahamiyat almasaajid bay ku saabsan tahay taas waa meesha keliya idinka la idin dhaafayo jim ilan wixii buugga ku qornaa waaye buuggaad fiirinaysaa waa ka fiirsanaysaa waa soo akhrinaysaa
أضع علامة الصح، علامة الصح أيان كقرية أمام العبارة الصحيحة، ويدا أو صحيح أو صحة هرت هذا. وعلامة خطأ، علامة خطأ أيان كقرية أمام العبارة الخاطئة، ويدا خلطا هرت هذا. كو تعد المساجد وحلو تريا من أفضل بقاع الأرض عند المسلمين. للك بوسسكي سماش وفضل بدن مسلمين تأكتوضا واسح. لابو إذا اجتمع هذي اسكو إمادان تحية المسجد، صلاة دي مساجد لو سلام أي وصلاة المكتوبة، صلاة دي واجب كأهي ويضع الأقماء تصوغشو يقدم وحال هرمرين آياء هو تحية المسجد. فرد مساجد كانت سلامي سلام ركعات كنيسة كدي بد واجب كجليسة وقلت وعطان نبي هدي يضع الأقماء تصوغشو فرل كالتو كان واجب كالا قبل هذا. صدح يجب على المسلم قفك مسلم قوح واجب كوه عند دخوله المسجد، مساجد مركو صقل أن يبدأ أن يكبل بتحية المسجد. أي واجب كوه وقلت لأنه محاني تحية المسجد واجب معه وعلى قربها السنة واعي يعني لو خلد المشهس قفك مسلم كوح واجب كوه مركو صقل مساجد إنه تحية المسجد كبلها أي واجب كوه دي له قوله صح معها محا حكم كذا نوعها سنة مؤكدة ماشي مركو على خلد اسكجر. أفر يجوز للمسلم قفك مسلم كوحاء بنان عند دخوله المسجد مركو مساجد كالسوق قالوا وحاء بنان أن يجلس إنو فريستو قبل أن يصلي انتو ستكنن كهر بتحية المسجد. صلاة المساجد انتو نتكنن كهر إنو فريستو أيا بنان ماشي إني كسو درام على فعنا لكن صح إنسكي قرينا لأنه يجوز أيالير مرة دي أي سنة مؤكدة تهي way kuu bannaan tahay laakiin waa laga fiican yahay. markaan waa isku xiridii marka asilu waxaan ku aadinayaa majmuucata oo alif maa yunaasibaha waxa ku haboon min majmuucatu ba oo hoosteeda mid walba inta hoos ku tahay alifkii waa kana ba'diina waa taas. idaa uqiimat salaatu haddii salaada la aqimo falaa salaata ila almaktuuba salaad la tukanaya ma jiro ilaa tan waajibka amaahane. xukmu salaati taxiyati almasjid تحية المسجد صلاة هذا حكم كذا محون قنايا وحوي سنة لمن دخل المسجد. وفي مساجد كسوق قال أي سنة قنايا هذا مساجد سوق قال محبل لك عمر من دخل المسجد والإمام يخطب هدي قف مساجد كسوق قال الإمام كي خطبين آية محون سمين يا صلى ركعتين خفيفتين لا بركع هذا خفيف تكنايا. إذا دخل أحدكم المسجد هدي أحد كين ومساجد كسوق قاله waxaa laga rabaa marka falyarkac ha tukado ragcatayni laba ragcadood qabla an yajlis intuusan fariisanin. tucaddu lmasaajid masaajidda waxaa lagu tiriyaa marka min afdali waxaa lagu tiriyaa inay yihiin meelaha ugu fadliga badan biqaaci alardi cinda allah dhulka ilaahay agtiisa. iyadana waa caddahay marka annashaad ardayga marka wixii uu samayn lahaa ubayinu waxaan caddaynayaa buu ardayga leeyahay xukma xukunka man dakhala almasjida qofkii masaajidka soo gala ثم صلى الراتبة كدمنا صلاة الراتبة أتكده هل يجب عليه واجب مي كتهي تحية المسجد تحية المسجد واجب مي كتهي قفك مساجد سوق لي صلاة برك أو راتبة أيو تكدي أما مد أو هراء أو لوجر ربي وكسر تجي أما مد مركز كهر رئيس مثلا واحد سوق شيء ظهرات سوق شيء ظهر صلاة راتبة كهر رئيس مركز سوق لي راتبة دي أنت كدي صلاة تحية المسجد ما لقى ربع ما لقى ربع لأنه إذا كان الذي كرر صوابار لك واساس لأنه هذه صلاة واجب كأبي سلامتي أي شيء تنكلنا سلامتي ويجلس أو راتبة وصلاة بس راتبة أتوكتي يا بوسك تحية المسجد كو جليسة. درسي جاسنا إنسان هالكاسن كل ما ينو درسي شنادة ما دام وجبية هي فصل كانوا نوع حنسوق عادني إني مرول بآخر كسيب بديع سيتحان كهدو ونو إيمان أديكو عن سفي عن وآخر. masaajidkana markaa geshid ha fariisanin haddii aad hore u fariisan jirtay adoo fulinaya amarkii nabiga sala allahu calayhi wasalam. qofkii masaajid gala ha salaamo muxuu ku salaamayaa laba ragcadood oo sunna mu'akada ah oo inaad ka tagta ayna fiicnayn. waxaan rajaynayaa inaad darsiga ka faa'iideen masaajidana markaa gashaan aa horena u tukan jirteen haddana aad sii xoojin doontaan. darsigeenana halkaasuu noogu ogyahay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi